Halkani waa Gaacir Media. Dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta badan. Soo dhawaada wararkeena. Qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha Brazil oo la maxkamadeynay. Guddiga Senetka dalka Brazil oo muddo 6 bilood baaritaan sameynaya baaritaankaas oo ka dhan ah kaalintii ay xukuumadda Brazil ku lahayd dhimashada dad ka badan 600,000 oo qof ayaa soo bandhigay warbixintoodii. Soo bandhigista warbixintan ayaa qaadatay muddo 12 saacadood taasoo cadeymihii guddiga Senetka soo bandhigay la dhageystay. Guddiga oo ka koobnaa 11 xubnood ayaa 7 ka mid ah ogolaadeen in la ansixiyo warbixinta, waxayna sheegeen in dacwad lagu soo ogayo madaxweynaha Brazil Mr. Bolsonaro. Guddigan baarista ah ayaa sheegay in Mr. Bolsonaro uu geystay 9 fal dambiyeed. Fal dambiyeedka ugu horreeya uu geystana uu yahay fal dambiyeed ka dhan ah bini'aadanimada. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in 18 qof ay mas'uul ka yihiin dhimashada 600,000 oo qof oo u dhintay Covid-19 dalka Brazil. Brazil oo waddanka labaad xagga dhimashada Covid-19. Warbixintan ayaa intaa ku daraysa haddii madaxweynaha Brazil si dhab ah wax uga qaban lahaa ka hortagista, wacyigelinta iyo xakamaynta Covid-19 in dad shacab ah oo fara badan la badbaadin lahaa. Mr. Renan oo ka mid ah Senetka Brazil ayaa yidhi madaxweyne Bolsonaro waa dilaa halis ah. Marka guddiga Senetka ay ansixiyeen warbixinta kadib ay maxkamadda sare ka codsadeen in Bolsonaro ay xayiraad ka saarto baraha bulshada si uusan u isticmaalin bulshadana uusan u maran habaabin. Balse taageerayaasha madaxweyne Bolsonaro ayaa yidhi guddiga Senetka ajenda siyaasadeed oo gooni ah ay wataan, taasoo ay ku dareen guddiga Senetka waxay rabaan in Bolsonaro laga guuleysto doorashada soo socota. Guddigan warbixintooda waxay u gudbin doonaan qareenka guud oo haysta 30 maalmood si uu uga soo jawaabo dacwadahaas ay u soo gudbiyeen guddiga Senetka. Haddaba warbixintan ayaa la aaminsan yahay inay dhaawac u geysan doonto mustaqbalka siyaasadeed ee Mr. Bolsonaro.